haddii gobolka saaxil ee galbeedka Afrika uu ku jiray dagaallo dhinacyo kala duwan ah oo reer galbeedka iyo weliba kooxaha hubeysan, markan waxa uu u soo jeestay arrin kale oo muhiim ah. 6dii bishii Juun ee sanadkan aynu ku guda jirno ee 2026 waxaa magaalada Ouagadougou ee caasimadda dalka Burkina Faso ka qabsoomay shir ka duwan shirarkii siyaasadeed ee lagu yaqiinay. Waa shirka SIBA. waa madal iyo carwo muhiim ah oo isu keenta khubarada maaliyadda, maalgashadayaasha, shirkadaha iyo hay-adaha maamula suuqyada saamiga si looga wada hadlo horumarinta dhaqaalaha, maalgashiga qaaradda iyo sidii dadka caadiga ah loogu soo celin lahaa amaba loogu soo dhoweyn lahaa suuqyada maaliyadda. Doodda ugu weyn ee looga hadlay shirkan ayaa ah sanadkan cidda maamusha kalsoonida oo xaqa u leh inay go'aamiso in dal Afrikaan ah maalgashi lagu aamini karo. Hay-adaha qiimeynta caalamiga ah sida Moody's iyo weliba Fitch waxa ay inta badan Afrika ku qiimeeyaan muraayad ku salaysan halis iyo dhibaato, iyaga oo indhaha iska tiraya awoodaha horumarineed ee mustaqbalka fog. Tani waxa ay keentay in deynta lagu soo kordhiyo, taas oo cuuriyaamisa mashaariicda iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee qaaradda. Shirkan ballaaran waxaa soo qabanqaabiyey iskuna soo dubariday guddoomiyaha guud ee carwada SIBA, waxa uuna shirku ku qabsoomay garab istaagga iyo weliba hogaaminta madaxda sare ee dhanka maaliyadda ee gobolka. Waxaa jira isbeddel fikir oo la rabo in la aasaaso hay'ad Afrikaan ah sida African Global Rating si ay u qeexaan xaqiiqada dhaqaale ee qaaradda una abuuraan kalsooni ka timaada gudaha. Hoggaanka dalka Burkina Faso, Kabtan Ibrahim Traoré iyo taageerayaashiisu waxay aaminsan yihiin in madax-bannaanida siyaasadeed ay ku xiran tahay xakamaynta mashiinada dhaqaalaha, gaar ahaan adkeynta kaydka guud iyo maalgashiga maxalliga ah. Dadka arrintan falanqeeyay waxa ay ka walwalsan yihiin hay-adaha cusub ee Afrika in ay la kulmi karaan faragelin siyaasadeed, hufnaan la'aan dhanka xogta ah iyo weliba kalsooni darro kaga timaado suuqyada caalamiga ah ee u bartay halbeegyada reer galbeedka. Mowduucan lagu lafaguray SIBA 2026 ma ahan oo keliya dood maaliyadeed, hase yeeshee waa dagaal lagu soo celinayo gobonnimadii iyo madax-bannaanidii Afrika ka luntay. Tobannaankii sano ee la soo dhaafay, Afrika waxa ay ku jirtay xabsi maskaxeed iyo mid dhaqaale oo ay ku xireen hay-adaha maaliyadda ee reer galbeedka. Dhibaatadu ma ahan in Afrika aysan lahayn khayraad amaba fursado, waa in sharciga ciyaarta iyo weliba garsooraha ay yihiin ajnabiga aan marna u turin danta qaaradda. Haddaba isbeddelkan la rabo in uu noqdo mid dhab ah, waxaa jira qodobo muhiim ah oo ay tahay in la tixgeliyo baa layidhi. Suuqyada maaliyadeed ee adduunka marnaba kuma shaqeeyaan shucuur, khudbado siyaasadeed amaba dareen wadaninimo, ee waxa ay ku shaqeeyaan xaqiiqo iyo joogtayn. Haddii ay Afrika rabto in la rumaysto hay-adaheeda qiimeynta, waa in ay ka fogaataa gacanta siyaasadda. Caqabadda ugu weyn ee hortaagan hay-ad kasta oo lagu dhisayo Afrika waa in maalgashadayaashu ay ka baqayaan in ay dowladdu si qasab ah isku siiso dhibcaha sare, iyada oo dhaqaalahoodu daciif yahay. Sidaas darteedna madax-bannaanida hay-adahan cusub waa mid aan laga tanaasuli karin. Qodobka ugu muhiimsan ee arrintani ku jira waa dhisidda nidaam isku xira kaydka malaayiinta Afrikaanka ah iyo weliba mashaariicda qaranka. Afrika haddii ay ku guulaysato in lacagta dhex taalla dekedaheeda u beddesho maalgashi, waxa ay si weyn u yareyn kartaa baahida loo qabo in deymo laga soo qaato sanduuqyada maaliyadeed ee New York amaba London. Tani waa furihii ay isticmaali lahaayeen waddamada ku yaala bariga Aasiya sida Shiinaha iyo weliba Kuuriyada Koonfureed si ay u hantiyaan masiirkooda dhaqaale. Isku dayga Burkina Faso iyo guud ahaan qaybaha Afrika ee hormuudka ka ah Afrikaanka waa tallaabo geesinimo leh ayaa layidhi in arrintani la sameeyo. Madax-bannaanida maaliyadeed ma ahan in laga go'o adduunka intiisa kale, balse xalka dhabta ah waa in Afrika ay miiska wadahadallada caalamiga ah tagto iyadoo ah garsooraha ka qayb qaadanaya dejinta xeerarka, halkii ay ahaan lahayd oo keliya maxbuus lagu xukumayo xeerar dad kale ay dejiyeen. Isbahaysiga waddamada saaxil oo ay ku midoobeen dalalka Niger, Burkina Faso iyo weliba Mali
iyo shirka maaliyadeed ee SIBA waxa ay si toos ah isugu xiran yihiin dhanka hadafka iyo istaraatiijiyadda. Inkastoo saaxil ay ku bilaabatay isbahaysi militari iyo mid ammaan, haddana waxa ay si degdeg ah u noqotay mashruuc weyn oo raadinaya madax-bannaani dhaqaale iyo mid maaliyadeed. Shirka SIBA ee ka dhacay magaalada Ouagadougou waxa uu ahaa madal farsamo oo loogu turjumayo fikirka gobonimo doonka ah ee saaxil si loogu beddelo qorshe maaliyadeed oo dhab ah. Dalalka isbahaysiga saaxil waxa ay si cad u diideen inay ku tiirsanaadaan reer galbeedka, hadday ahaan lahayd dhanka amniga amaba dhanka dhaqaalaha. Shirka SIBA doodda ugu weyn ee ka dhalatay waxa ay ahayd yaa xaq u leh inuu go'aamiyo dhibcaha ammaanada ee dhaqaalaha ee loo yaqaano credit ratings ee dalalka Afrika. Dalalka saaxil waxa ay muddo dheer ka cabanayeen in hay'adaha reer galbeedku ay si ula kac ah dhibco hoose u siinayeen si loo curyaamiyo dhaqaalahooda loona yareeyo kalsoonida maalgashadayaasha. Shirka SIBA waxa uu gobolka saaxil siinayaa fursad ay ku taageereen hay'ado madax bannaan oo Afrikaan ah sida African Global Ratings si ay u sheegaan sheekadooda maaliyadeed ee gaarka u ah. Tan iyo markii dalalka saaxil ay ku dhawaaqeen inay ka baxeen urur goboleedka ECOWAS, waxaa si weyn loo hadal hayay inay isaga bixi doonaan lacagta CFA Farankiga ee uu Faransiisku maamulo, iyaga oo samaysan doono lacag u gaar ah iyo nidaam maaliyadeed oo madax bannaan. Si lacag cusub ama nidaam maaliyadeed oo cusub oo u guuleysto, dalalka saaxil waxa ay u baahan yihiin suuqyo saamiyo iyo weliba suuqa maaliyadda oo aad u xooggan. Shirka SIBA waxa uu diiradda saaray sidii loo xoojin lahaa suuqyada maaliyadeed ee gobolka si ay dalalka saaxil lacag ugu ammaanaysan karaan suuqyada maxalliga ah halkii ay baryi lahaayeen bangiyada adduunka amaba Paris. Hogaamiyaha Burkina Faso Kabtan Ibrahim Traoré waxa uu mar walba ku celcelinayaa in dalalka gobolka saaxil ay hodan ku yihiin dahabka, uraniumka iyo weliba kheyraad kale, laakiin dhibaatadu ay tahay in lacagta ka soo baxda aysan dalka dib ugu soo laaban. Mowduuca guud ee shirka SIBA waxa uu ahaa in suuqyada saamiyada loo soo dhoweeyo shacabka. Tanina waxa ay si toos ah u fulinaysaa aragtida dowladaha saaxil halkii ay lacagta dibadda laga soo tuugi lahaa waa in la abaabulaa kayd malaayiin muwaadiniinta ku nool dalalka saaxil lagu maalgelinayo mashaariicda kaabayaasha dhaqaalaha ee gobolka sida wadooyinka, tamarta iyo weliba warshadaha. Isbahaysiga dowladaha saaxil waxa uu rabaa in uu abuuro aag dhaqaale oo midaysan oo ka madax bannaan saameynta dibadda ee reer galbeedka. Shirka SIBA waxa uu ahaa meel ay isugu yimaadeen shirkadaha macdanta ee Burkina Faso, bangiyada gobolka iyo maalgashadayaasha guud ahaan ee galbeedka Afrika. Waxa uu ahaa shir u adeegay sidii buundo maaliyadeed oo isku xiraysa ganacsiyada waaweyn ee gobolka saaxil si ay u wadaagaan raasumaal iyo weliba maalgashi. Isbahaysiga dowladaha saaxil waa fikirka iyo jihada siyaasadeed, halka shirka SIBA uu ahaa aaladda iyo nashqadda maaliyadeed ee fikirkaas lagu fulinayo. Haddii dowladaha saaxil ay rabaan madax-bannaanida dhabta ah, waa in ay ku guuleystaan hannaanka maaliyadeed ee lagu falanqeeyay SIBA, kaas oo ah in la dhiso hay'ado maaliyadeed iyo suuqyo saami oo ay Afrikaanku leeyihiin laguna kalsoonaan karo guud ahaan caalamka. Fadlan daawade, haddii halkan la soo gaartay channelka subscribe isla markaana ka mid noqo saaxiibada inagu xiran, waxaynu halkan ku soo gudbin doonaa sheekooyin iyo muuqaalo xiiso badan. Gentlemen, welcome to the second edition of the International Africa Stock Exchange Fair SIBA 2026.